السلام عليكم أصحابتي وردقدقة ترام wareegtadii habeennimadii isniinta uu soo saaray oo qaxootiga gabi ahaanba uu ku joojiyay waraaq kale oo wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay maanta telefishinka CNN ka helaa ka dambeysay dhammaanba dadkii tikidhada ay u jarnaayeen oo la rabay inay dhamaadka bisha soo socota iyo tan ku xigta ay soo baxaan gabi ahaanba waa la kansalay warkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay ku dhawaad 10,000 oo qof oo caafimaadkooda uu ka dhacay ama security jagi ayaa tikidhadii gabi ahaanba laga kansalay sidoo kalena waxaa jirta in hay'adda IRC Africa oo anaguna booska GVA inay ku jirto dadka interviewada ay marin jirto caafimaadka ay u diri jirtay ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri ma jiraan wax request ama codsiyo cusub oo qaxooti ah oo aad qaabili kartaan xilligan la joogo sidoo kalena hay'adda IOM oo dadka tikidhada u jirta iyadana waxaa lagu yiri oo dadka qaxootiyada inta ka soo qaato kaniiniyaalkiisa gool ku xareyso dadkii ahayseen ku celiya qaxootiyada kuwa kalena kama soo qaadi kartaan qaxootiyada gabi ahaanba IOM amarkaasi ayaa la siiyay ma jiraan wax dad ah oo u soo safraya haddii ilaa iyo jimcaha aad ku qorneed inaad Mareykanka imaato waad imaan kartaa laakiin hadda xitaa sabti soo bixi lahayd gabi ahaanba soo ma bixi kartid qoraalkaasi ayaa soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dhammaanba dadkaasi oo laga yaabo guryahoodii alaabahoodii inay iibiyeen Trump balay kugu dhacday waa la kansalay gabi ahaanba safarkoodii waxaan ognahay 9 sano ka hor Trump 2016 markii uu xilka la wareegay in uu sidoo kale dadkii uu joojiyay ilaa hadda wali ay joogaan marka hadda arrintan 3 bilood uu qabsaday may ku dhameyn doonaan wax ka bedeli doonaan